kulanti wacan wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobadan kuga helan waxaa ka mid noqon doona Mareykanka ayaa shaaciyay magacyada ilaa 10 ruux oo Soomaali ah oo lagu daray liiska wax loogu yeeray argagixisada haddaba maxay tahay sababta Mareykanka ugu daray Soomaalidaasi waan idin soo gudbin doonaa xilli cunaqabateyn dhanka hubka ay soo bandhigeen shakhsiyaad al-shabaab u qaabilsanaa Mareykanka wararka ugu dambeeyay arrimahaas ayaa daawo doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona saaxiibayaal wararka ugu dambeeyay qarax khasaare kala duwan dhaliyo oo ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dhimashadu way sii kordhaysaa waxaa kaloo idin soo gudbin doonaa xogta qorshaha ay wadaan siyaasiyiin tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug oo qayb ka yahay madaxweynihii hore ee Galmudug iyo wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wararka ugu dambeeyay qorshaha ay ka wadaan magaalada Dhuusamareeb ayaa soo kale daawo doontaan wararka arrimaha gobolkan waxaa ugu waaweyn ciidamada Itoobiya ayaa qabsay magaalooyin muhiim ah oo markaas ka tirsan gobolka Tigray qodobadan ku faahfaahin doona wararka arrimaha caalamka diblomaasiyadda wadan hadii aad noqoto subscribe kuna saabsan barnaamijkan furo una sii share gareey saaxiibadii meel kasta joogan idinku commentiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin waa 18 bisha Oktoobar 2022 Mareykanka ayaa shaaciyay magacyada 10 qof oo Soomaali ah oo lagu daray waxa loogu yeero liiska argagixisada waaxda maaliyadda ee dowladda Mareykanka ayaa shaacisay inay heshay xogta ku saabsan dad ka tirsan shabakad isku xiran oo dhanka fududeynta dhaqaalaha u qaabilsan al-shabaab kuwaas oo la soo bandhigay magacyadooda qoraal la soo dhigay bogga internetka waaxda maaliyadda ee waddankaasi Mareykanka ayaa lagu sheegay in dadka la magacaabay ee door hogaamineed ay ku leeyihiin al-shabaab ayna u shaqeeyaan sidii xiriiriye muhiim ah oo u dhexeeya kooxda iyo shirkadaha maxalliga ah ee Soomaaliya shirkadahan ayaa ku hooneed baadhida soo iibinta hubka fududeynta dhaqaalaha iyo howlo la xiriira qorista dadka ku biiraya ururka al-shabaab sida lagu sheegay warkan marka laga soo tago inay hormuud ay keen al-shabaab fududeeyaashan waxa ay xiriir toos ah la sameeyeen baadhida saraakiil kale oo hore markaasi lagu aqoonsay inay yihiin al-shabaab dhammaan dadkan ayaa lagu daray liiska shakhsiyaadka loo aqoonsan yahay inay ka tirsan yihiin argagixisada iyadana loo cuskanayo qaraarka fulinta EO tiriska lambarkiisu yahay 1324 wax laga bedelay kaas oo bartilmaameedkaasi waxa argagixisada iyo taageerayaashooduba ay yihiin Mareykanka ayaa hore u sheegay in al-shabaab ay gacan saar la leeyihiin ururka al-qaacida wuxuuna weeraro duqeymaha joogtada la beegsadaa dhaqdhaqaaqyadooda gudaha Soomaaliya liiska magacyada la shaaciyay ayaa kala ah Cabdullaahi Jeeri oo la sheegay in uu si qarsoodi ah hubka u geeyo al-shabaab Khaliif Cabdalla oo lagu tilmaamay inuu al-shabaab u qaabilsan yahay inuu lacagaha markaas ugu soo ururiyo eedaha aan dawliga ahayn Xasan Afgooye oo lagu sheegay hogaamiye sare oo ka tirsan al-shabaab kormeerna u sameeya laamaha maaliyadda Mareykanka ayaa ninkan madaxiisa dul dhigay 5 milyan oo dollarkaasi Mareykanka Cabdikariin Xuseen Gaagaale oo la sheegay inuu asna noqday ku-xigeenka madaxa qaybta maaliyadda al-shabaab kana soo hoos shaqeeyay Mahad Kartay Cabdisamad oo lagu tilmaamay asna xubin ka tirsan al-shabaab oo xiriir dowlad leh golaha sare ee kooxda ninka ugu dambeeya ayaa markaasi Cabdiraxmaan Nuuri oo lagu qeexay inuu yahay isku xiraha al-shabaab iyo shirkadaha sida gaarka loo leeyahay 3 qof oo ka kooban shabakad qaabilsan kala gudbinta hubka oo magacyadooda markaasi kaliin Maxamed Xuseen Salaad Ahmed Xasan Ali Suleymaan Mataan iyo Maxamed Ali Badaas dadkan magacyadooda la sheegay ayaa markaas lagu soo rogay hay'ad dhanka dhaqaalaha oo Mareykanka ay ka soo saareen qaybihii hore ayaa daawanaysan saaxiibadan keen hadii aad noqoto subscribe kuna soo gambalka furo una sii share gareey saaxiibadii meel kasta joogan idinkoo commentiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin hadii jeer sida aad nala jaan qaadaysaan oo aad nala socotaan markaana wararka ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ayaan ku soo laabanaynaa ugu yaraan 8 qofood ayaa la xaqiijiyay in ay ku geeriyeen tirintaas ka badan ay ku dhacmeen kadib qarax miina oo xalay ka dhacay xaafadda Ceelqalow ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir goobjooga ayaa noo sheegay in dadka ay soo gaareen qaraxa khasaaraha dhammaan ay yihiinba dad shacab ah halkaas maray wadada ayaana ahayd mid aad u mashquul badan muuqaallo iyo sawirro laga soo qaaday goobta uu qaraxaasi ka dhacay ayaa muujinaya in khasaaraha ugu badan uu gaaray dad la socday ugu yaraan 2 mooto bajaaj oo qaraxaas uu haleelay dhaawacyadii dadkaas aan waxba galabsan ayaa loola carray isbitaalada magaalada Muqdisho lama yaqaano cidda uu ahaa bartilmaameedka qaraxaana idaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya weli wax faahfaahin kama aysan bixin khasaaraha ka dhashay qaraxa iyo cidda uu markaasi bartilmaameedka ahaa
dagaalamayaasha al-shabaab ayaa fuliyay qaraxyada iyo dalalka qorsheysan ee ka dhaca magaalada muqdisho waxaana xusid mudan in gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka intaa ay ka joogaan wada ka socdo kacdoon bulsho iyo xuduud militari oo la doonayo in lagu soo afjaro ururka dagaalamayaasha al-shabaab balmarkaana magaalada dhuusamareeb ayaan aadinay halkaasi waxaa iskugu tegay siyaasiyiinta beelaha habargidir madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa faahfaahin ka bixiyey safarka wafdigii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo hogaaminayay axadii halkaasi tegaya cali daahir ciid ayaa sheegay in dhuusamareeb uu ka furmay shir ay iskugu yimaadeen 11 beelood ee deegaan galmudug kaasoo lagu tashanayo sidii loogu qayb qaadan lahaa dagaalada dalka loogu xoreynayo ururka al-shabaab iyadoo laga faa'iideysanayo duufaanta dalka ka socda ee la iskaga xoreynayo al-shabaab ayaa shirkan dhuusamareeb ka furmay buu yidhi waxaana lagu tashanaya sidii ay galmudug oo gacmaha ishaystaba ay qayb ugu noqon lahaayeen wixii shirkan ka soo baxaana ay la wadaagi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uu sheegay in galmudug ee markaas ay ugu yeertay xubnaha ku matalaya dowladda federaalka inay ka tashaan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee deegaanada galmudug ee sana loogu xoreyn lahaa ku-xigeenka maamulka galmudug madaxweynaheeda ayaa sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu mahadceliyay dagaalka uu iclaamiyey ee lagu qaaday al-shabaab isagoo beelaha kale ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadan waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa maanta waddo kale oo noo furan ma jirto oo al-shabaab ah in markaas aan ka adkaano bedelkeedana aan qoryahan qaadano hubkana aan qaadano iskana difaacno weerar kasta oo nagu yimaada iyo meel kasta ay joogaan in aan ku weerarno buu yidhi cali daahir ciida ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in shirkan uu dhuusamareeb ka socon doono 2 maalmood kadib markii halkaas furmaha dagaalka ay weli ay sii cuslaanayaan qabiyi gabagabada ayaan isla soo gaana daawadayaal haddii aad noqoto subscribe noosarkan balkan furo una sii sheergareeya wararka gobolkeena aadinahay mas-uuliyiinta dalka Itoobiya ayaa isniintii sheegay inay qabsadeen magaalo ku taala gobolka waqooyi ee colaaduhu ay ka taagan yihiin Tigray bayaan ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay inay doonayaan inay si degdeg ah ay gacanta ugu dhigaan garoomada diyaaradaha iyo kaabayaasha kale ee gobolka Tigray ciidamada federaalka Itoobiya oo kaashanaya dhinacyo kala duwan ayaa isniintii gacanta ku dhigay magaalada Shire ee ku taala dhinaca waqooyiga galbeed ee gobolka Tigray sidii ay xaqiijiyeen 4 galwaad oo kooxaha qaabilsan gargaarka bini'aadanimo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP dhinaca Tigray wax jawaab ah kama soo bixin arrintan ku saabsan magaalada Shire ayaa martigelisay dad badan oo barakacayaal waxaana xaruntii ugu weyneed ee ciidamada dowladda gacanta ay ku dhigeen bariyahanba deegaanka Shire oo maalmihii lasoo dhaafay ee dagaalo culus ay ku dhexmareen dhinacyadii dagaalamay ayaa ah goobta jimcihii lagu diray shaqaale ka tirsan guddiga samata bixinta caalamiga ee ICRC-da oo gargaar markaasi qaybinayay dhinaca kale xogaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in xaaladda waqooyiga Itoobiya ay u muuqato mid faraha ay kasii baxayso isagoo sheegay inaanay tallaabo militari xal u noqon karin colaadda ka jirta gobolkaas rabshadaha iyo burburka waxay gaareen buu heer aad markaasi loogu naxo qaab nololeedkii bulshadana uu burburay ayuu yiri xogay Antonio Guterres xilli uu ku sugnaa mid ka mid ah xarumaha qaramada midoobay xogaha qaramada midoobay ayaa sheegay in beesha caalamka inay tahay inay markaasi isku yimaadaan si loo soo afjaro buu yiri colaadda muddada 2 sano ah ka socota dalalka Itoobiya taas oo ay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen kumanaan qof halka malaayiin kalena ay qar ku saareen macluula wararka waaweyn ee Soomaaliya caalamka kala socdaan channelkeena daawadayaal waa naginta haddii aad ku cusubtahay subscribe noosarkan balkan furo una sii sheeganay saxaabada markasta jooga adigoo kuma taga